iyadoo roobka xilliga deerta ay ka da'ayaan magaalada muqdisho haddana waxda caafimaadka dowladda hoose ee xamar oo kaashanaysa shirkadda deegaan dhowr waxa ay si wada jir ah ay u bilaabeen ololo caafimaad oo ay degmooyinka gobolka banaadir ay ka samaynayaan halkan waa warta biyogaleenka Siigaale oo ku taalla degmada Hodan ee gobolka banaadir waxay ka mid tahay goobaha biyogaleenka ee ku yaalla caasimadda waxaana waxda caafimaadka dowladda hoose ee xamar ay adeeg caafimaad ay si rasmi ah maanta uga bilowday warta biyogaleenka Siigaale maamulaha shirkadda deegaan dhowr Axmed Cabdi Axmed ayaa ugu horeyn waxa uu warbaahinta u sharaxay muhiimadda ay leedahay hawshan ay maanta qabteen shirkadda deegaan dhowr waxay aad iyo aad ugu faraxsan tahay inay ka qayb qaadanayso ololo lagu caawinayo dadka barakacayaasha ee degan degmada Hodan gaar ahaan warta Siigaale aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan mar walba qayb ka noqono caawinta dadka barakacayaasha ee masaakiinta Soomaaliyeed mar walbana diyaar waxa u nahay insha Allah bidnillahi alkariim inaan shaqadaas qaybteena ka qaadano annagoo wixii tabarteena annagoo ku xireenin wax wajaa iyo wax magaciisi madana ku xireen insha Allah bidnillahi alkariim sidoo kale waxda caafimaadka dowladda hoose ayaa deeq marakaneecooyina waxa ay u qaybisay qaar ka mid ah qoysaska degan hareeraha warta biyogaleenka Siigaale maxamed maxamuud cadow waa agaasimaha waxda caafimaadka dowladda hoose ee xamar saaragteen waxaan ka qabanay shaqo oo lagu dagaalamayo cayayaanka iyo kaneecada ugu badnaatay wartaan ka dhalatay dhibaatadaasna waxay nooga imaatay dadka deegaanka ah oo muddoba problemkaas la tabanay anagoo kaashanayna marka shirkaddan oo deegaan dhowr iyo degmada Hodan oo gudoomiyaheeda hogaaminay maanta waxaan noo suurta gashay inaan wartaas buufino iyo warar kale oo badan ilaa ay 5 xabo gaaray laakiin tantii nasiib yeelatay waa inaan ka bilowno insha Allah waxaan rajaynaynaa meelaha kale inaan gaarno wixii tabarteena ah intaas waxaan noo sii weeliyay waxaan u qaybinay marakaneecooyin dadka barakacayaasha ah oo degan hartan hareeraheeda oo asleenahay dhibaatada ugu badan ayaga gaarayso una nugul marka waxaan gaarsiinay ayagana marakaneecooyin oo kaalmaad u ah kaneecadana waan ka buufinay wixii kale insha Allah oo aan qaban karnaa oo qabanayna waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada Cabdixakiin oo aad noo la shaqeeyay iyo amnigiisa iyo wixiisa dhan ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdiraxiin Dhagajoon ayaa waxda caafimaadka dowladda hoose uga mahadceliyay adeegyadan ay ka fulinayaan degmooyinka gobolka Banaadir oo dhan saakay waxaan u soo kalahay waxda caafimaadka iyo shirkadda deegaan dhowr waxay buufin ka sameeyeen warta Siigaale oo aad taqaanaan inta leegtahay baaxadeeda sidoo kale waxay sameeyeen dadkii barakacayaasha ama qaxootiga ku ahay hareeraheeda oo kaneecadu dhibtay in marakaneeca loo qeybiyay waan kaga mahadcelinaynaa waxda caafimaadka dowladda hoose iyo shirkadda deegaan dhowr qaybta weyn aad ka qaadateen waxaan rajaynaynaa inaan marar kale nagu soo laabo doontiin hadii la yiraahdo sidaad cabashada shacabka u jawaabteen aadan kaga mahadcelinaynaa Umar Maxamed Soomana Universal TV Muqdisho